waxaa maalintii shalay ahayd magaalada Hargeysa si rasmi ah loogu soo gabagabeeyay bandhigga carwada sanadka ee 2018 ee Soomaaliland oo muddo 7 maalmood ka socotay hoteelka Guuleed waxaana carwadaasi muddadii ay socotay si weyn uga dhex muuqday hoteelka Damal oo kamid ah hoteelada casriga ah ee ugu waaweyn magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera iyagoona halkaasi ay ku soo bandhigeen adeegyo kala duwan iyo qiimo dhimis 20% oo socon doonta ilaa iyo bisha koowaad ee sanadka dambe Mustafa Cabdiraxmaan Cabdilaahi madaxa suuqgeynta ee hoteelka Damal oo TV-ga Universal la hadlay waxa uu macaamiishooda u sheegay todobada cishay marka carwada socotay waxaan anagu kaga qayb qaadanay inaanu soo muujino oo soo bandhigno adeegan bulshada u hayno adeegaas oo ka kooban hurdo cunto hoolal waxyaabaha soo bandhigna waxa kamid ah inaanu ku soo adeegaygan horumarinay aan waxyaabo badan ku soo darnay sida matalan inaanu sameynay qiimo dhis 20% oo aan ugu talagalay carwada awgeed mid kale waxyaabaha kale aan ku soo darnay waxa kamid ah inaanu soo korinay inaanu guryaha geyn karno oo xafiisyada geyn karno oo haday dawladda tahay haday hay'adaha tahay haday kuwa bacbishirka tahay haday meel kasta tahay inaanu geyn karno catering-ki waa catering-ka la yiraahdo oo wax walba ka kooban oo waliba ku jiro inaad heli karto neefkii oo dhameystiran oo cuntadiisii iyo bariiskiisii iyo khudaartiisii ay wax walba gudaha ugu jiraan oo aad markaad casuumad leedahay aad gurigaaga kaysan karto adigoo aan hawl badan ka qabsan isagoo fikiraysan oo laga shaqeeyay waxyaabaan ku soo kornay kala waxa kamid ah inaan kor u qaadnay adeegga service-kaygaan bixin jirnay oo 100% meel wanaagsan maanta maraya inaan bulshada ku soo dhaweyno nala arkaan Damal Hotel geesta kale Joseph maamulaha guud ee hoteelada Damal waxa uu faahfaahiyay adeegyada ay u diyaariyeen macaamiishooda kala duwan waxaanu yiri My name is Joseph Jambo. I'm the general manager for Damal Hotels, both in Hargeisa and Berbera. hadafkayagu waa inaanu ka talino farxadda macmiilka annagoo ku dadaalayna tayada cuntooyinka iyo adeegyada kale waxaanu ku dadaalaynaa inaanu macmiilku hilmaamin muddada uu nala joogay Our objective is to make sure that the experience the customer has here is unforgettable in whatever they do. We have 100 hotelka Hargeysa waxa uu ka kooban yahay 105 qol kan Berberana waa 48 qol oo dhamaantood si fiican u diyaarsan waxaanay leeyihiin marxawado qaboojiyayaal miisas cunto akhris iyo shawirkii meedhashada oo la diirin karo iyo wifi adeegyadaas oo dhamaantood laga soo dheegtay hoteelada casriga ah ee 5 star-ka ee dunida cuntooyinka kala duwan ee halkan aanu ku diyaarinay waxa kamid ah Chinese Arab iyo qaar kale oo ay ka hawl galeen shaqaale khibrad leh we can make for you any cuisine you want according to our 5-star chef waxaanu kaloon ku kordhinaynaa makhaayad iyo hool waxaanu hadda gacanta ku haynaa hool qaadaya kursi kaas oo dhammaan doona bisha October ee 2019 waxa kale oo maqaayadda Damal ee Hargeysa ku kordhinaynaa laba kale waxaanu idinku soo dhaweynaynaa Damal Hargeysa iyo Berbera oo idinla diyaara dhamaantoodba munaasabadaha aroosyada qalinjabinada iyo wixii la mid ah waa Idris Bershia telefishinka Universal Hargeysa